salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kulantii wacan oo wanaagsan dhegaystayaal iyo daawadayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada Asqalani Channel. Asxaabta nagu xiran oo waxaan jeclaystay inaan maanta idiin soo gudbiyo qiso yar oo ku cibro qaadasho mudan oo ka hadlaysa waaqaca ka jira adduunkan aynu maanta ku noolnahay. Qisadani waxa ay ku bilaabanaysaa sidatan: wiil ayaa wuxuu ku yiri aabihiis, aabe, waxaan soo arkay gabar aad u qurux badan. Waxay leedahay indho qurxoon, joog iyo jamaalna waa loo dhammaystiray. Waxaan rabaa inaad ii doonto gabadhaas oo aan guursado. Odaygii ayaa yiri, waan kuu doonayaa haddiiba maanta aad gabar ku qancisay soo aragtay, balse marka hore gabadha aan arko. Odaygii markay gabadha la tusay wuxuu ku yiri wiilkii, wiilkaygiiyow, uma qalantid gabadhan, waayo waxay u baahan tahay qof waayo arag ah oo sideeda oo kale. Wiilkii oo la yaaban damaca aabihiis ayaa ku adkaystay inuu isagu gabadha guursanayo. Muran iyo dagaal kadib waxaa lagu heshiiyey in la aado saldhigga booliska si loo kala saaro labadooda. Taliyihii saldhigga joogay markii ay u sheegeen arrinta ay isku haystaan, wuxuu ku yiri, gabadha i tusa marka hore. Markii la tusay ayuu yiri, labadeennaba uma qalantaan gabadhan, waxay u baahan tahay qof sharaf leh sideedoo kale. Mar kale ayaa muran la galay. Saddexdii nin waxay u gar dhigteen duqa magaalada ama guddoomiyaha magaaladaasi. Duqii magaalada markii loo sheegay arrinta, isna wuxuu dalbaday in gabadha la tuso. Markuu indhaha saaray wuxuu yiri, gabadhan waxa u qalma oo kaliya mas'uul aniga oo kale ah. Arrinta markaan waxay gaartay wiilkii boqorka oo aad looga dambeeyo. Afartoodii ayuu isugu yeeray si uu u xalliyo dhibka dhexdooda ka jira. Balse markuu gabadhii arkay ayuu isbedelay, wuxuuna ku yiri nimankii kale, yaa idin yiri gabadhan hawaysta anigoo jooga. Halkii ayaa madaxa mar kale la isla galay oo dagaal adag ka dhex dhacay shantii nin. Shanta nin waxay kala yihiin wiilkii koowaad, aabihiis, taliyihii booliska, duqa magaalada iyo wiilka boqorka u dambeeya. Shantaas nin waaye. Ugu dambeyn gabadhii ayaa tiri, aniga ayaa idinkala saaraya. Waan ordayaa, shantiina qofkii ugu horreeya ee i soo qabta ayaa i guursanaya. Sidii ayaa lagu ballamay. Gabadhii quruxda badnayd way oroday. Shantii nin ayaa ka daba cararay. Iyagoo aan gaarin ayay ku dhaceen god weyn. Gabadhii inta ku soo laabatay oo soo dul istaagtay godkii ay ku jireen ayay ku tiri, ma taqaanaan qofka aan ahay? Waxay ku dhaheen, ma naqaano qofka aad tahay, balse waxaan kuu jeednaa in aad tahay gabar qurux badan. Waxay ku tiri, waxaan ahay adduunyo, dadku way iga daba cararaan, waxayna rabaan inay aniga i helaan. Way igu loolamaan, dartay ayay isku dilaan, dartay ayay isku dagaalaan, iyadoo mid walba aniga i doonayo. Waxay iloobeen diintoodii iyo aakhiradoodii labadaba, ilaa ugu dambeyn ay god galaan oo ay ka dhintaan ayaga oo aan weli i helin. Qisadii halkaas ayay naga eg tahay. Waa Asqalani Xareed oo idin leh adduunyadu yaysan ida dagin. Wabillahi tawfiiq.